halka aan taaganahay waa kantaroolka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waa halka uu ka dhacay dagaalkii qararaa ee ka dhacay galbeedka magaalada subax hore oo Alaastay ayaa ciidamada doolka ah ee Soomaaliland ayaa weerar ku soo qaaday magaalada kadibna ciidamada xaqudurka ayaa ay isku haleeleen waxaana lagu jabshay ciidamadii Soomaaliland kadibna iyagoo kabaha dabada ka tuuraya ayay halkan ka carareen imika kantaroolka magaalada waxaa gacanta ku haya ciidamada xaqudurka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo kantaroolaya amniga guud ee magaalada waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya marka dib loo fiiriyo siyaasadda Soomaaliland ayaa gabi ahaanba fashilantay kadib markii laga soo kiciyo furmo fara badan oo dhanka bariga ah magaalada Laascaanood guud ahaan waxay ka baxday gacanteeda haddana waxay ku sugan yihiin Gooja Cadde sidoo kale ciidamada ku sugan Gooja Cadde ee Soomaaliland ayaa dariiqa isku xidha Gooja Cadde iyo magaalada Og waxa uu bixiyeen dariiqul Malkumood kadib markii ciidamada badan oo dhaawac iyo kuwa dhimasho la marsiiyay dariiqa dheer waa kowte magaalada Laascaanood